waxaa maanta la soo gabagabeeyay shirkii wadatashiga beelaha warsangeli ee ka socday magaalada Badhan ee gobolka Sanaag. shirkan ayaa waxa uu bilowday toddobaadkii aynu ka soo gudubnay waxaana shirkan inta badan lagu lafaguray madaqada gobolka Sanaag. xaaladda shirkaasi ka soo baxay ayaa waxa bahda warbaahinta u akhriyay Caydaruus Axmed Faarax Caydaruus Oday. kadib xaalad colaadeed oo ka soo cusboonaatay gobolka Sanaag oo uu sababay ciidamo maamulka Hargeysa ee isku magacaabay Somaliland soo geliyay deegaano kamid ah gobolka isla markaasna geystay weerar gardarro ah oo sababay dhimasho iyo dhaawacba oo ka dhacay Dabalaxagare maalin Talaado ah bisha Ramadaan oo ku beegnayd 22 bishii Shanaad 2019 iyo sidoo kale magaalooyinka Yubbe iyo Carmale. waxaa uqaasha iyo waxgaradka warsangeli ee deegaanada Sanaag Highland iyo galbeedka gobolka Bari isla qaateen in la isugu yimaado shir degdeg ah oo looga adeegsanayo xaaladda cusub ee deegaanadaasi galeen sidii looga arinsan lahaa wax looga qaban lahaa isla markaasna loo wajihi lahaa. shirkaasi oo ka furmay magaalada Badhan taariikhdu markay ahayd 10kii bishii 6aad 2019 waxaa ka soo qayb galay ergo tiradoodu dhan tahay 60 ergey oo ay hogaaminayaan cuqaasha beeluhu. shirku markuu ansixiyay ajandihii ama qodobadii laga hadli lahaa waxaa shirku iska qabtay guddi farsamo oo ka kooban 15 xubnood waxaana iska dhex doorteen shir guddoon ka kooban 3 xubnood iyo xog hayn ka kooban sida oo kale 3 xubnood. falanqayn iyo lafagur lagu sameeyay qodobadii shirka looga hadlayay kadib waxaa la soo saaray go'aano iyo baaqiyo dhinacyo badan taabanaya waana sidan. kadib markay soo noqnoqotay sheegashada iyo ka tirsanaanta dalka iyo dadka ku dhaqan gobolada Sanaag Highland iyo galbeedka gobolka Bari maamulka Hargeysa ee isku magacaabay Somaliland waxaa shirku go'aamiyay in deegaanadaas iyo dadka ku nooli kuna dhaqani aanay ka mid ahayn waxna ku darsan cid ku matashaan aanay jirin maamulka isku magacaabay Somaliland. Yacquub Cashe iyo wararka telefishinka GBC magaalada Badhan ee gobolka Sanaag.